بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داوديال halkan waa TV Garisaale Muqdisho ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka caawa qodobada aan idin soo gudbin doonaan waxa ka mid noqon doona shirka u dhaxeeya dawladda federaalka hoggaanka maamul goboleedyada oo maalinkii labaad galay barnaamijka ayaa kaga bogan doontaan hadii uu rabeen wararkii ugu dambeeyay sidoo kale waxaan barnaamijkeedan kugu soo gudbin doona galmudug oo dad fara badan oxygen la'aan ugu baabaayaan iyo maamulka gobolka mudug oo arrinkaasi war ka soo saaray barnaamijka ayaa kaga bogan doontaan ciidamada dawladda Soomaaliya ee gobolka Shabeellada Hoose oo howlgallo xooggan ka wada deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose kadib weeraro isxigxiga ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen Bariire iyo sidoo kale Awdigle oo ka tirsan gobolkaasi Shabeellada Hoose qodobadana kale waxa ka mid noqon doona mas'uuliyiinta Galmudug iyo Puntland oo heshiis ka gaaray dhalinyaro ku xiran magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland qodobada iyo qodobo kale oo muhiim ah ayaan barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa saaxiibayaal u diyaar garow barnaamijka dhacdooyinka habeen wanaagsan daawadayaal markale waa aniga Bashiir Cabdiraxmaan shukri caddo ayaan kaga mahad celinaya barnaamijka caawa dhanka farsamada iyo sidoo kale kaamirada hagaagsan waxaan ku hormari doonaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaa maalinkii labaad galay shirka u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya hoggaanka maamul goboleedyada dalka waxaa maalintii labaad ka furmay xarunta teendhada aviation ee ciidanka cirka ee magaalada Muqdisho shirka madaxda federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir shirkani oo shalay bilowday ayaa maanta waxa ay madaxda ugu gonleeyin mas'aada ay kaga doodayaan ajandaha shirka iyo sidoo kale cidda ka qayb galaysa shirweynaha la qorsheynayo in maalmaha soo aadan uu ka furmo caasimadda Muqdisho wararka shirka laga helay ayaa waxa ay sheegayaan in maanta ay aad ugu duwanaa shalay iyada oo dhinacyadu jawaabo kulkulul ay sameynayeen shakhsina ay iskagu jawaabayeen waxa ayna labada dhinac ama dhinacyada gaar ahaan maamulada ka aragtida duwan dawladda Soomaaliya ay soo bandhigeen qodobo ay sheegeen in ay muhiim tahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ogolaato waxa qodobadaasi kamid ah in shirka la ballaariyo ayna ka qayb galaan qaar kamid ah madaxda badbaado qaran iyo sidoo kale gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi wararka ayaa waxa intaasi ay ku darayaan in madaxda federaalka iyo dawlad goboleedyada ay ka aragtida duwan ay ku adkeysanayaan in geedi socodka doorashada lagu sheego oo kaliya lagu saleeyo heshiiskii 17 September ee xamar iyo sidoo kale is-afgaradkii Baydhabo halka madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ay ku doodayaan in waxa la isku weydiiyo dhacdooyinkii 19 Febraayo ee xamar iyo sidoo kale in door la siiyo saamilayda siyaasadeed ee dalka ka jira wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa dadaal xooggan ku bixinaya in madaxda Soomaalidu ay heshiis ay ka gaaraan arrimaha ay isku hayaan kala aragti duwanaansha Puntland Jubbaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sababtay in doorashooyinka Soomaaliya waqti badan ay qaataan iyadoo dawladda Soomaaliya kaliya ay doonayso in la fuliyo heshiisyadii hore loo galay 17 September iyo afgaradkii hore Baydhabo looga soo gaaray halka maamulada Puntland iyo Jubbaland iyagu ay ku doodayaan inay muhiim tahay in doorka saamilayda siyaasadda la muujiyo dhinaca kalena qabuuraha Muqdisho ee duleedka caasimadda Muqdisho maanta waxaa lagu aasay 4 dhalinyaro ah oo xalay ku geeriyootay weerar ismidaamin ah oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho caasimadda dalka heelada asxaabta iyo sidoo kale dhalinyaro kala gedisanayaan ka qayb galay aaska qaar kamid ah saaxiibada oo goobta warbaahinta la hadlaya waxa ay ka hadleen dareenkooda la xiriira sida ay ahaayeen dhalinyaradii maanta lagu aasay qabuuraha Muqdisho ee magaalada Muqdisho ilaaha u naxariiste walaalkeen Cabdi Maalig dhalinyartu guud ahaan wanaga wada bixin si qaas waxay taabanay walaalkeen Cabdi Maalig oo muddo ku dhawaad 4 sano isbalaas fadhinay oo aan isla dhiganay jaamacadda Muqdisho marka sabr iyo iimaan Allah ka sii ehelkoodii dhamaantood yaani asxaabta wadanka Ilaahay noo nabadiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan dhihi karaa walaalahan maanta inaga baxay dhamaantood waxay aan ku qalbigeena ku weyn kuwa nala dhashay kuwa asxaabna la kuwa aan hari habeen waqti ugu badan aan wada qaadano wallahi maanta waxaan sheegay ma aqaano waxaan dhan ma aqaan aan Ilaahay oo wada naxariista dhamaantood waxay aan dhalinyaro wax baratay dalkooda joogo farxad ku wada maalin kasta iska warhayo maanta waxaa dishay gacan ka xaqdaran walaaleen shal naga wada dhintay dhamaantood waxay aan kuwa nugu weyn ruuxantii waa geeri yani mutafajaca waaye aad ugu naxnay waliba markii walaalka ama wax waaye
qofka kugu dhawaa ma uu ka dhinto xanuunkeeda aad u dareemaysaa saacado ka hor kugu dambeysay qadar cabdiqadar maxaa cali ilaahay u naxariisto waxaa walaalkay u ahay 5 sano wax soo baranaynay waxaa ilaa hadda waxaa isla noolneen runtii gacan xadarna dishay wax uu geystay ma lahan waxaa dalkan wax ku bartay ku noolaay dalkiisu maal gashtay waxay ka mid ahaayeen dhalinyaradii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo xoogan ka wada deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose kadib weerar xoogan oo shabaab maalin hore ku soo qaadeen saldhigyo ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka Shabeellada Hoose ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo ay ku baadigoobayaan xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab waxa ay maanta ka wadaan mase waxa ay maanta ka sameeyeen awdhigle iyo sidoo kale duleedkeeda ee gobolka Shabeellada Hoose howlgalka ayaa waxa daba socda dagaal habeen ka hor xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada awdhigle iyo sidoo kale deegaanka Barhiire oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose taliyaha ururka 143 guutada 14 Oktoobar Dhame Axmed Xasan Siyaad ayaa warbaahinta dawladda waxa uu u sheegay in ay ku raajoogaan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugan tuulooyin u dhow degmada awdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose kuwaas oo qayb ka ahaa dagaalkii lagu soo qaaday deegaanka awdhigle Dhame Axmed Xasan Siyaad waxa uu sheegay in howlgalka lagu soo qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab isla markaasina uusan joogsan doonin ilaa deegaanada gobolka Shabeellada Hoose ay Al-Shabaab kaga saaraan sida uu sheegay degmada awdhigle ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa habeen ka hor ka dhacay dagaal culus oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii ay dagaalyaano ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ay ku soo qaadeen halkaasi barnaamijka dhacdooyinka ayaa daawanaysan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan galmudug waxaa laga soo sheegay xaalad adag oo dhinaca COVID-19 iyada oo maamulka gobolka Mudug maamulkaasi iyo wasaaradda caafimaadku ay shaaciyeen dhibaatada cudurkaasi uu ku hayo in ka badan 100 qofood ayaa saacadii la soo dhaafay COVID-19 laga helay gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiri ayaa waxa uu sheegay in dadka cudurka haleelay COVID-19 ay u baabayaan oxygen la'aan gudoomiyaha ayaa ka deyriyay xaaladda caafimaad ee bulshada ku nool gobolka oo uu sheegay in aysan heli karin oxygen-ka ku filan inkastoo uu xusay inay jiraan isbitaallo yaryar oo oxygen kooban ay yaalaan oo ka tirsan gobolka gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay si degdeg ah ugu baahan yihiin in la soo gaaro oxygen-da iyadoo dad fara badan oo cudurka uu soo ridanayo dhanka kalena wasiir dawlaha wasaaradda caafimaadka maamulka Galmudug ayaa ka hadlay daafurka talaalka COVID-19 oo degmada Xeraale ee gobolkaasi Galgaduud si rasmi ah maanta looga daafuray waxa uu sheegay in talaalku wax badan uu ka bedelayo xaaladda caafimaad ee dadka uu xaleelayo xanuunka COVID-19 runtii halkan maanta waxaan u nimid degmada Xeraale in laga daafuro talaalkii COVID-19 talaalkaas oo runtii muhiim u ah bulshada reer Galmudug guud ahaan labadii maalintii labaadna socda oo qamiistiisa official uga bilowday dhammaan degmooyinka Galmudug intooda badan maanta halkan waxaan u nimid marka in la daafuro oo bulshada lagu bilaabo waan uga mahadcelinaynaa gudoomiyaha degmada Xeraale inuu asagu oo noqdo qofka ugu horeeyo degmada Xeraale lagu talaalay bulshadana uu noqdo tusaale waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino bulshada reer Xeraale iyo deegaanada hoos yimaada in talaalka la qaato nambarka la keenay oo 2200 oo qof talaalkiisa ah waxaan rabnaa inaan dhameysiin maalintii 202 qof la ka rabaa inaan talaashaan 10 bariyo talaalku soconayo 1200 marka waxaan rabnaa inaan sida u dhaqsaa badan lagu dhameystiro hadii la yiraahdo iyadoo la iskaashanayo tiimamka wasaaradda u soo qortay tiimka wasaaradda u soo qortay degmada inay ka shaqeeyaan iyo maamulka degmada iyo qaybaha bulshada kala duwan inaan iska kaashataan hadii la yiraahdo oo talaalkaas sida ugu macquulsan loo socodsiiyo Xeraale waa deegaanka kaliya ee Galmudug oo masaajidda iyo meelaha madarasooyinka laga fuliyo tilmaamaha caafimaadka iyo awaamirta caafimaadka laga qaato waan ku ammaanaynaa culimada reer Xeraale iyo deegaanada hoos yimaadaba inay runtii bulshada si fiican uga wacyigeliyaan waxaan isdhihi karaa meelaha ugu baraarugsan yahay cudurkan ay ka mid tahay Xeraale ka mid tahay waan ku ammaanaynaa waxaan rabnaa in la sii joogteeyo mudana gudoomiye culimada magaalada waxaan rabnaa COVID-ka wacyigelintiisa qayb badan ay ka qaateen talaalkana inay qayb badan ka qaataan hadii la yiraahdo
oo dadka inay istallaalaan lagu dhiirigeliyay. Tallaalku waa ka hortag waaye, marka ka hortagaas inuu bulshadana cudurka uusan ku faafin inay culamo diinku nagala qayb qaataan bulshada casuuntaan oo shir aad qabataan tallaalkaas lagu wacyi gelinayo inaad qabataan waan ka codsanaynaa haddii la yiraahdo. intaas kadib waxaan rabaa fursadda aan uga faa'iideysto degmada Xeraale runtii amar madaxweyne ayada wasaaradda caafimaadka Galmudug ay qaadanayso oo ay fulinayso amarka madaxweynaha Galmudug Axmed Qorqor waxay degmada Xeraale runtii ay u la mid tahay degmooyinka kale oo Galmudug adeegyada caafimaadka ee deegaanada Galmudug guud ahaan laga fuliyana si la mid ah ayaa wasaaraddu qorshaheedu ugu jirtaa in la fuliyo. waxaan rabnaa inaan kugu bishaareeno wasaaradda caafimaadku inay juhdi badan gelisay gaabkii ku yimid adeegga caafimaadka ee degmada Xeraale iyo Hursho ka socday ka jiray gaabkaas oo runtii ilaa iyo 3 bil ahay in gaabkii la dhameystiray oo mashruucii asoo 3 sano la soo cusboonaysiiyay sida ugu dhaqsaha badan oo u bilaabo doono insha Allah taala. marka agaasinka istaalka iyo shaqaalaha waxaan ugu bishaareynaa inay hawshoodii sii wada doonaan bulshada reer Xeraalana iyo deegaanada Hursho iyana inay ayaguna adeeggaas heli doonaan insha Allah taala. marka wasaaradda waxa uga tashanaysaan wasaaradda caafimaadku adeeg bulshada ka shaqeysa siyaasad kama shaqeyso adeeg bulshadana qof kastoo reer Galmudug waxa waajib wasaaradda ka saaran yahay in adeeg caafimaad la gaarsiiyo intii la awoodo. waa ognahay duruufteena iyo dhaqaale xumadeenu ma gaarsiisana inaan dhammaan adeegyada sidii loo rabay ay noogu socdaan laakiin haddana nagama saamaxayso inaan haddana iska fariisanee wax walbo la qaban karo iyo tilaabo walbo la qaadi karo waa qaadeena si dadka reer Galmudug hooyada iyo dhallaanka ugu muhiimsan yihiin ay adeeg caafimaad ku heli lahaayeen haddii la yiraahdo. marka reer Xeraalow talaalkana inaad tartanka talaalka ku guuleysataan waa rajeynaa insha Allah taala. wasaaradana wasaaradiini waaye diyaaraan idin lanahay in la idin la fariisto wixii maaragtay baahiyaha ka jira Galmudug gaar ahaan Xeraale ka jirana wasaaraddu insha Allah way u diiwaan gashan yihiin hadbana wixii laga qaban karo ayaa laga qabanaa haddii la yiraahdo. marka balanteenu waa talaalkaas oo hirgelino maanta qorsheenu kaas oo ahay waxyaabaha kale oo baahiyahana waa iskaga imaan doona insha Allah taala. isla wararka Galmudug ayaan ku guda jirnaa Puntland ayaa ogolaatay wareejinta maxaabiis u xiran burcadbadeednimo oo ku xiran magaalada Garowe. xildhibaano ka tirsan labada baarlamaan ee Galmudug iyo Puntland wasiiro ka tirsan maamulka Galmudug iyo wasiirkii hore ee dekedaha iyo kalluumaysiga Galmudug Cabduqaadir Cali Jaamac ayaa waxa ay kulan maradhal ah ay kula qaateen magaalada Garowe wasiirka cadaaladda Puntland Cawil Sheekh Xamuud iyaga oo kulankan kaga hadlay sidii maxaabiista si loo wareejin lahaa. kulanka oo u dhaxeeyay xildhibaanada labada dowlad goboleed iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta iyo dimuqraadiyadda dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa diiradda lagu saaray wareejinta maxaabiista reer Galmudug oo muddo 13 sano ku xiran xabsiyada maamulka Puntland. qorshaha lagu wareejinayo maxaabiista ayaa ah mid in muddo soo socday iyadoo ay isku kaashanayaan maamulada Galmudug iyo Puntland waxaana maxaabiista loo haystaa falal burcadbadeednimo ah. wafdiga Galmudug uu hogaaminayo gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka Galmudug xildhibaan Yunis Maxamed Shire waa xildhibaan Yunis Maxamed Shire waxa uu sidoo kale uu shaaciyay in arrinkani uu wadooyin fara badan uu soo maray isla marnaantaasina guul ku soo dhamaaday. waxa uu tilmaamay in ay muhiim ay tahay labada dhinac in ay heshiis rasmi ay ka gaaraan. hagaag barnaamijka dhacdooyinka ayaa daawanaysaan meel walba aad joogtaan habeen wanaagsan aan idin leenahay saaxiibayaal. wasiirka wasaaradda cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ambalaas ku wareejiyay xabsiga taliska ciidanka asluubta ee Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo. ambalaastan ayaa waxa ay shaaciyeen wasiirka cadaaladdu in looga talagalay in loogu adeego maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Baydhabo haddii ay la soo darasto xaaladda COVID-19 oo wadanka dhibaato xoogan uu ku hayo. taliyaha asluubta Koonfur Galbeed ee Baydhabo ayaa ka mahadceliyay waxa uu sheegay in isbitaal waa in saldhig uusan haysanin ambalaas tan ay qayb ka noqonayso horumarka loogu sameynayo saldhigga dhexe ee ciidanka asluubta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. goobta waxaa ka hadlay taliska asluubta wasiirka cadaaladda ee mas'uuliin kale oo ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya. guddiga Backleraw oo tumila maxubnood ku dareerta guddigaas baag dhisidiis iyo walaata magalaan
way guddigan ka shaqeeyay maaragna baahiyo ku jiraan ama kale in iyo kor joogtayaan iyagoo wasaaradda maaragna ku shaqada qaadayaan iyo taliyaalka oo saldhigyada iyo xarumo maaragna maahaytiisa xabsiyada in wasaaradda cadaaladana qobati fadhinas ku kooyo guud ahaan dadka maaragna arrimoogaas ku arrimayaan warbixintii meelo ka gudbiyeen khayr alla siyaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed runtii way ka baaqay in la suubiyo guddi la ka magacaabo correction committee maaragna maradhalshe geeka tan unaati sununu wayn mahdiyaane ilaahay oo maaragna garowsi in arrintaas maaragna ku wada shaqeyno way mahad kale leh wasiirka cadaaladda iyo garsoorka oo runtii safaylanin kula shaqeey arrimoogaas oo runtii ilaa ay geeka hata la rooga maradhalshe dhaxsarunna baahi ku jiri baahi ku mid ma haytuuse xabsiga dhexe in maaragna ma haytuuse geeka inta munaasabadii aan roogna marka way kale mahadnagaane wasaaradda kale oo shaqada kala haay oo arrimoogan maaragna iyo naftarsho ma haytuuse la dharaan dhariya wasaarado arrimaha gudaha waxbarashada haatoy wasaaradii maaliyadda haatoy mudan wasiir 6 bilood ka hor tun ambalaas magamnaa geek tanriidkan yaalo wala ka shaqay ma masukoyn juh badan inta la geli shirar badan qowati walbeel wasaaradda suubid eedan ugu ambalaas ka hor bajaaji wal ka qaadani lama biise dil kukuma oo hojir jirdoon adaaw ko fada hol madana la ku warsa bajaaj saaran oo naftana shaqaynay goobaha sabar laakiin ini wasaarid lana oo la niimo qani oo lana wasaaradoogan kuliyo toobaha aad gaareen aan la haadan oo dawladana wasiir lana meel hooseedan fiiksi lana geek idaajo landa wala doona baahooyinkan kala haana dawladda kiiriyin haanuna may kiiriyin mujtamac kale in la wadaaga waligeek nuqobado korna qobadaana waligeek lan qobado korna barila qobade wali barlan qobado korna baradambe la qobade marka may codsadaan in oo dulqaadkii mudulaha ka wadi xiliya dawladda sanayti xilli dawlad laan lahaayb xabsigan hamaamul jarteen baahiyo oo geeka baahi kulsi liidito ka maamuleen geeka ambalaas haystaan wasaaradda qabtaan baahiyooyin badan oo daboolahay walaaq maqano yar yaro shidaalka iyo kumid kaalmada cuntada iyo wal noocaas ansurugna an rooraan wana ku shaqeey doono bilaahi er wana wal daboolo doono may gudahan ma nagay saraakiil xigeenadii dableydii oo ka sabarti oo wadan soo shaqeeyeen dad soo shaqeeyeen meelun hamiin imaalan ka haayeen maxaabiis lihirin ka haayeen ma nagaana dulqaadkii oo muujiyaan may kale ma nagaana shaqaalaha wasaaradda cadaaladda oo hamiin imaalan insurun si oo kaaba lahaayeen daboolo fadaan baahiyaha oo ku baxaw xabsiga iyo gudiyada dhisan waxaan wasaaradda dhisti iyo haani horeeyay idoon dhisaan sida baag oo kale ma nagaaniyon shaqada dheer iyo fikirka badan oo galiyaan mayna dareemanahay in isla shaqay doono mudada isla roogno shaqadan ilaahay niqeedmada ka jarna isla shaqay doono baahi walba maalin walba baahi kala daboolo doono oo ilaahay in suura galiyo ilaahay ar marka hel nisabroy adduunyada way la reeyay irbad arurti masaarana gadaas in oo mar baahida yar la daboolo wali gudaha una ka filannan sida nadaafada iyo ku shaqeeyna wali banaanka aysan baahanteen aan weydiidan oo dadkina sareeyo madaxweyne Cabdicasiis in ka horjareen oo weydiidan baahida walgeek la daboolo waayay barla daboolaa jiraan wal barla daboolaa baradam inta ayaan ku soo gabagabeynaya saaxiibayaal barnaamijka dhacdooyinka caawa tan iyo kulankeena dambe habeen wanaagsan